magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed iyo golaha dhexe ee guddiga ganacsatada waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ayaa loo doortay Daahir Axmed Dhoore oo helay codadkii ugu badnaa oo ay dhiibteen shirkadaha ganacsatada Soomaaliyeed waxaana dhankooda hambalyo u diray isla markaana sheegay inay la shaqeyn doonaan labadii musharax ee xilkan kula tartamay. farxad bay ii tahay in aan noqdo hogaamiyihii ugu horeeyay ee laga aasaasay magaalada Ankara qaybta ganacsiga. taa sharaf bay ii tahay intii igu taageertay intii igu dhiirigelisay aad baan idinkaga mahadcelinayaa. xildhibaan Guuleed Caydaruus oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyay hoggaanka la doortay iyo sida ay doorashadu dhacday. haddii ay dhacday maanta ganacsiga urur yeelatay ardayda urur soo lahayd qaybihii bulshada oo dhan waxay noqon doontaa inaynu urur ka yeelano kadib urur weyn ku midowno oo jahliyad Soomaaliyeed oo siman inaynu yeelano markaas waddankana jiritaankeena iyo joogisteena noqoto mid qurux badan. aad baan ugu hambaleynayaa labadayda garab oon aad u jecelahay laba qof oo aad iigu qaaliya Ankarana aan oran lahaa laba qof oo aan u dhiibi lahaa xilka oon iyaga ahayn aanay jirin. safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin doorashada xorta iyo xalaasha ah ee ay qabsadeen ganacsatada Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlay xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Turkiga iyo dardaarankii ay siiyeen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Erdogan kaasi oo ku aadanaa in meel wacan la gaarsiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal. ganacsatada maanta halka joogta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sida isxilqaanka leh ay hawshan uga wada qayb qaateen. doorashada maanta halka ka dhacday waxay ahayd sida loo sheego doorasho xor oo xalaal ah. waxyaalaha kale aan ku faraxnay waxaa ka mid ah qaabkii golaha dhexe loo doortay oo isagana hal cod lagu wada doortay maca gudoomiyihii. macnaheedu waxa weeye xitaa gudoomiyaha golaha dhexe waxaa doortay ganacsatada oo dhan Mr. Ismaaciil Axmed Ismaaciil. Danjire Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa si weyn u bogaadiyay qaybsamaha safaaradda ee arrimaha ganacsiga iyo warshadaha Maxamed Aadan Daahir iyo qunsulka safaaradda Salebaan Maxamed Kaarshe oo dadaal badan geliyay sidii loo dhisi lahaa maamulka ganacsatada Soomaaliyeed. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush magaalada Ankara.